إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي هدو إذنه وحن سمينتنا 10 كتفسيرك وترجمة الصومالية أنا بدلتنا هدي إلهي إذنه أنت إلهي إنه أجرسي 10 كمركة تفسيرك وحنون نقطنا إن شاء الله كريم inaan hoos ka soo bilowno inaan kor ka soo bilowno waa barnaamij idinkeedin dhex yaala maaragtay meeshii aan ka wadi lahayn laakiin hadda wali ma ana go'aansan meeshii aan ka wadi lahayn maaragtay dadka qaar baa waxay iska jecel yihiin suuradaha hoose in laga bawdo quraankuna aad sidoo nidaamsan waa aragtay oo suuratul faatiha ka bilowda ilaa baqara saasu birabinaas ku taga marka nidaamkiisaas in loo wadana waa fiican tahay labada qaab waxay ku xiran tahay dadka oo loo akhrinayo iyagu siday markaas yiraahdeen kitaabka quraanka ah wax kasta marka la rabo in la akhriyo tilmaantiisa ayaa la bixiyaa shayga rabto in akhriso tilmaan baa laga bixiyaa quraanka marka carabiga waxa lagu yiraahdaa taariif istilaahiya macnuhu waxa weeye aqoonsi oo lagu heshiyay oo dadka ahlu cilmiga uu ku heshiyay marka aqoonsiga noocaas ah culimadu kuwasi ku sheegaan qofkii aayad arkaaba aayadaas wixii uu ka fahmo ku sheega hadda quraanka ilaahayna waxa weeye sidoo ilaahay uu ka rabo asaga baa og nabigiisana uu u sheegay annagana waxba naga soo gaaray marka guud ahaan waxba ugama aanan ogin maaragtay waxa jira markaas saas waxay noqonaysaa ruux walba tilmaan gooni inuu bixiyo laakiin tilmaamahaas inta badan way isku dhadhowyiin ruuxu marka inuu tilmaanta quraanka haysto muhiim weeye maaragtay waliba meesha aan joogno waa looga baahan yahay si aad iyo aad loogu baahan yahay maxaa yeelay waxa lagu dhihi karaa quraanka aad haysataa muxuu yahay waa maxay quraanku su'aal baa kugu iimaan kara markii aad garanayso tilmaanta quraanku uu leeyahay marka garanayso jawaabtu way ku fududahay 10 tilmaamood ayaa quraanka lagu tilmaamaa adiga hadii aad maaragtay nin dhuuban oo cata aad tahay marka lagu tilmaamayo soo lama yiraahdo waa nin saas la yiraahdo quraanku marka tilmaamo badan buu leeyahay laakiin 10 tilmaamood oo muhiim ah ayaa laga sheegaa ina marka 10 kaas tilmaamood taqaano waa muhiim maxaa yeelay qof aan muslim ahayn baa ku weydiin kara muxuu yahay horta quraanku ku dhigi karaa moogta tilmaanka ugu horeysa 10 kaas waxa weeye quraanku waxa weeye kalaamullah وإلهي هذا الكيس إلهي هذا الكيس مركي ليرين وقرنا سايو إلهي مخلوقات كيس السدو وقصر رأيه بكلام كيسونا كلام كمخلوقات كي وقصر رأيه مركي ليري كلام الله لفظا ومعنى حق اللفظ حق معناها بو قرآن كوحكوية كلام كي إلهي هذه مثلا لغة كلا لغة ترجمة واللفظي لغة كلا لغة لغة الصومالي وكلا قرآن كي لفظي سؤبدش قرآن لديه ما يمكاس قرآن مركل لديه كرا وحوي ومركو معناها هي لفظي هايستو كلام كإلهي مركاس قرآن لديه كرا كلام الله مركو وحوي قرآن كوا كلام كإلهي لفظا ومعنى بكلام كإلهي كيه وأنا أركض دون تايو dad badan oo barnaamijkaas ka murmahaya hadii aad arki doontaa maaragtay inuu quraanku lafdigiisu kalaamkii ilaahay uu yahay oo waxay ku leeyihiin lafdigan quraanka meesha yaala waa dalaala min kalaamilaahi wax ku tusinayo weeye kalaamkii ilaahay laakiin asagu maahan warkaasi war jira maahan waa war oo maaragtay mu'tazila ay wadato weeye waliga ayaan lagu khaldin kalaamkan قرآنك وكلامك إلهي لفظا ومعنى بكيه سوى تفصيلنا إن شاء الله وسين تجدونا marka midda ugu horeysa waxaan ku sheegnay tilmaanta quraanku leeyahay inuu kalaamka Ilaahay yahay
marka labaad waxa weeye kalaamkii ilaahay oo mucjiso weeye mucjisnimada waxa laga wadaa ruux kasta oo isku dayo quraankan in uu ka hor yimaado isaga ajis gelinaya quraanku maalintii uu soo bilowday ilaa yawmina hada cadaawadiisu way sii siyaadaysaa maalinta ka dambeysay sii siyaadaysaa hase ahaatee hal maalin quraanka wax ka bedela lama hayo waa aragtay dadka islaamka si loo lugoynayo hadii awood loo leeyahay waxa ay maaragtay ka shidaal qaadanayaan ma malaynaysaa in la deyn lahaa lama daayeen maalintii quraanku degida soo bilaabay ilaa yawmina hada cadaawadiisu waa siyaadaysaa laakiin ruux kasto isku day inuu wax ka dhibo asaga meesha ku banjaraya marka quraanku waa mucjiz weey xagga xukunkiisa iyo xagga macnihiisu ajis ku gelinaya qof kasto oo ka hor yimaado وتلمانت اللبات تلمانت سدحات وحوي المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة جبريل عليه السلام إن تلمانت سدحات وحوي ومتك اللجوس دجي نبي محمد صلى الله وسلامه عليه أو خاتم الأنبياء والمرسلين هذنا مرك اللو كان هي بواسطة جبريل أي اللو كان markii hore ilaahay baa quraanka xaqiisu ka yimid malakul jibriil baa soo qaaday nabi maxamed buu u keenay sidaas uu quraanku yimid quraanka marka saa u fiiriso aayad saa u tilmaamaya arkaysaa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuhul amin ala qalbika litakuna min almundirin marka ugu horeysa ilaahay xaqiis ka yimid malakul jibriil baa soo qaaday nabi maxamed qalbigiisa waa la keenay maaragtay marka sidaas uu ahaa quraanka marka la leeyahay waa kalaamkii ilaahay la leeyahay waa midka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi lagu soo dajiyay waa tilmaantii saddexaad way tilmaanta afraad waxa weeye المكتوب في المصاحف المقروء باللسان ومتك مصاحف تن لو قري لسان كان لو اخرينايو كتابك متك ku yaalo weeye oo lagu qoray arabkana laga akhrinayo markii la yiraahdo sidaas culimadu markay shay taariifinayaan ujeedada kale waxa weeye dad oo leexday oo dariiq sax ah ka leexday ba hadalkaas ku taagan yahay ina ogaatana muhiim waaye maaragtay dad baa waxay u taagan tahay quraankan hadana dhex yaala ma ahan quraankii ilaahay waxa weeye waa sifa azaliya oo xaq rabbi jirta laakiin kan waa dalaalo tusinaya quraankii ilaahay tusinaya laba quraan jirtay kuleeyeen marka maxay marka ka wada inay ku khaldaan rabaan quraankaani inuu yahay shay muhdisay ka wadaan oo makhluuq ah waana been warkaas quraankaani waxa weeye midka masaaxifta ku yaalo oo aan akhrinayna waa quraankii ilaahay weeye waa marka garatay inuu yahay al-maktub fi al-masaahif al-maqru' bil-lisan inuu yahay quraankii ilaahay inuu yahay waxa shanaysa المنقول بالتواتر قرآنك وحا لو سو غوري ترى بدن لو سو غوري تواتر وحا ليرادا وحي جمع سو غوري او جمع كلا او غوريا تواتر ليرادا ان ايد او ير او قرآنك كميده وحا لا شيغay 7 صحابي in nabiga ka soo maqashay aayada ugu yar waay maaragtay 7 صحابي baa dhageysanaysa annagana waxa laga yaabaa quraanka hadda wax weyn inuu san la ahayn oo ma taqaana wax weyn uu san banala ahayn dadaalka laga dadaalayna waa u jeedaa nabi maxamed aayada ugu yar 7 saxaabi baa ka dhageysatay waxa dibkaas quraanka u keenana waa garanaysaa quraanka nagi ayaa wuxuu noqday wax dadka lagu bariyo Soomaalidu waa maqashay inay ku yiraahdeen ayaga ugu daran dadka waxay yiraahdeen wacdi wadaad waxisiya ka dambaysa dibkaas markuu halkaas ka soo gaaray dibku quraanka waxa la dadka ku bari waa wixii ilaahay soo dejiyay wax qiimo leh way hadaa dadka ku barido waxa leeyahay haduu quraanku wax qiimo leeyahay asagu ma bariyaha iska daaya lagu leeyahay ma garat dadka hadaa bariyayso quraanka xagga u kaadso adiga bari hadaa rabtid laakiin hadaa inta aayada akhriso dadkii barido quraanku waa laga cararayaa maaragtay
dad culamaa waxay dhihi jireen markii masaakiintu ay ku soo tuugsato oo albaabka ay ku soo istaagto allah ku sahla ha dhihinina maxaa yeelay marka dambe ilaahay ay dhibsanayaan maaragtay allah marka tira dhaq aleeyahay qofka uu leeyahay markaan kuuma hayo ii soo noqo inaad tiraa roon laakiin haddaad tiraahdo allah ku sahlo allah way marka dambe uu dhibsanayaan marka lama rabo saas quraanka marka dhibka macnaha anaga gaarsiinay المنقول بالتواتر ومدي شنات مد اللحاد وحاول تلمانت اللحاد القرآن كأوليه المتعبد بتلاوته وحال يسكو أدون صدي قرآن كأخرين تسال يسكو أدون صدي لفظ جيسا إلا أخريه أجر بالغيه لها قرآن كيصلي أجر بالغيه لها داخل حديث تلفت وحي ذكر كسبان ها لكن من باب التعليم أيها أجر لوجيه لها أذيك عاود هذا قصيدة إسكدر دشوا وأكيلي سلام عليكم سببت متعبد كماهن إلا أخريه كماهن إلا قرآن كوال وأمر وحل ويرفقر وما تيسر وحي إذن كفض هذا أخريها اللي القرآن مركل النبي صلوات الله والسلام عليه وحير من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة قفك أخريه كتابك إلهي حسن ليه أجر بك إلهي لا أقول ألف لاميم حرف مرة هي ألف لاميم وسد حرف وحل حرف مرة هي ولكن أقول وحن لها ألف حرف ولام حرف وميم حرف سد حدث مركب متكست أو كم إذا حسنا مركي لقاسيه وحسنا دي تومن قرر الله صدم بحكي لسه ألف لاميم كليه بالكور قرآن كور مركي هذا أقرص كور ما أنت كن حرف هذا أقرص أما كبدا حق ملاينسه حديث كاسو حاوي حديث أو ترمذي وورين هاي وليه هاي حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح مركي اللي يرهدنا هذا باب اسمه شوقني وحديث لبا طريق له وطريقنا حسن كوا طريقنا ماركتي صحيح كوا مركا تلمانتي شناد وحنكون نري ومدك آخرنتي سل ليسكو أدون صدي المتعبد بتلاوته مد اللي حادو حويه من ستضوات ها المتحدى بأخسر صورة ومدك لقول لما أما لقول واجه ذي ضدك كسر كذا إن اللي مادين بأخسر صورة مدوية القرآن كان إنه حقيقة وحهو قرنيسا مركي مروا النبي يراهدين أسجع أبورتي أسجع اللي مدو حليل صورة مدوية القرآن كان لا إمادة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله هدي آد كشك سنتين وحان أدونك هي كسو دجني هل صورة القرآن كلمدا لا إمادة صورة القرآن كوير سورة الكوثر على الوشاقة سورة الكوثر وكلب لا إمادة وأسورة قلوة إذا ما ركت مرك القرآن كوحي أتاقيها مرول با قفكي كهري ماذا أو يرى هذا والنبي محمد سواء أبورتي أما واحد شرماهن أسقوا كلا الله يموباه وتعالى ماركت تحدقوا معناها أساسوي مركز سوى القرآن كوحي أتاقيها قفكي يرى هذا القرآن كان إنسان ماهن مجره وحلي أسقوا كلا الله كالي وايهاي إلى يومنا هذا روحي سكست أوفيرية وحل لقي هاي شيء وهدو أيان سوجره وحس بدلها قرعة وأركت النظام يبغى بعيد أو مسيحية أو كهري أو ماركتي وحيالي جري أردن وحكست أجرا وأسبدلها يعني لكن قرآنكم مالنتم سودق إلى يومنا هذا وح اسبدلكم إيمان الماركت مالنتم سودق إيمان توا إسلام الماركت عذب يصير ماله والبواسيسي هذا هي ماركت وصفدي سيدات مد السجارة وحوي قرآن تلمان تيس أنتوا ككوبيها تلمان بتلمان كبحنسة وحوي المفتوح بفاتحة الكتاب المختوم برب الناس ومد فاتحة الكتاب على قبل الله وحنا اللي قدامي برب الناس قرآن وهرس سورة الفاتحة حق سوء قريها كشيء كورمية سورة البقرة أساس وكسرانها برب الناس وكل ما هي لكن أنا جواد أركتيهم إن هوستان كبلونا وحوي هذا وحبرشة روح مركو وحبرنا هيو إن سورة دير اللوردجو سورة جابن اللوردجو وحهيمة كوفي عنتها سورة جابن وحلم دي روح مسافر كله مسافر كهدو صباح دي مركو جورجي سكتة بس أفر ساعة كله وهذا مجالك كله تجاهي هذا مركو تقول ليه ساعة وتجاهي هذا سديد ساعة وتجاهي
iyo la mid maahan hadduu saaka waa berigii inta magaaladaas ka baxo 12 uu soconayo la mid maaha marka suuradaha gaagaaban faa'iidooyinka ay leeyihiin macnaha saas weeye ruuxu waxa la rabaa himadiisa iyo dadaalkiisa iyo inuu suuradii markuu kala laaca haddana mid kale uu gudbo saasa laga rabaa marka 10kaas tilmaamood ayuu quraanku leeyahay waana 10 tilmaamood run ahaan qofku muslimka ay markii quraankiisa la weydiiyo uu uga jawaabi karo maaragtay jawaab u noqon karta markii la weydiiyo quraanku magacyaal badan buu leeyahay asmaa fara badan buu leeyahay ilaa 50 konton oo culimadu gaarsiiyaan laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye quraan kitaab tanziil furqaan magacyaalka noocaas labada magac oo aad iyo aad ugu muhiimsan waa quraan iyo kitaab waxay yiraahdeen labadaas magac waxay muhiim ku yihiin macnaha ku jira markii aad fiiriso waxa dareemaysaa inay muhiim yihiin waxay yiraahdeen al-maqru'u la yunsa shayga la akhriyo lama halmaamo al-maktubu la yabla shayga la qorana ma baaliyoobo marka macnahaas ay iyagu mashhuur ku noqdeen shayga markii la akhriyo ma la halmaamayo markii la qorana ma baaliyoobayo inkastoo Allah uu ballan qaaday inuu kitaabkan xifdinayo haddana labadan magac waxay tusinayaan kitaabkan inuu yahay kitaab waarahayo oo daa'imahayo oo marna aan maaragtay arrintiisu isbedelayn magacyaalkiisa waxa kamida waxyi baa kamida waxyina waxa la yiraahdaa waa quraan ilaahay uu soo waxyooday oo rasuulkiisu u soo waxyooday waxyi baa la yiraahdaa maaragtay wax ilaahay ka soo fulay xaqiisa ambiyadiisa uu soo waxyooday baa la yiraahdaa laakiin waxa laga yaabaa marar badan in aragto waxyi wax la yiraahdo oo waxyigii ambiyadana aan ahayn inuu qalqal ku galiyo marka lama rabo aniga hadda iraada hadda waa la waxyooday waa ila yaabaysan aniga waxyi ay yimid ama hadda iraahdo ma taqaana shaydaan baa maaragtay ninkaas u waxyooday taas Soomaalidu waa isticmaasha waxyiga macnayaal badan leh waxyigu markuu alla inta ka soo fulo rasuushiisa u soo fulo xaqiisa waa quraanka oo kale kaas waa gooni weeye laakiin waxa jira waxyi la yiraahdo waxyi ilhaam la yiraahdo macna qofka ilaahay waxbu ku ilhaaminaya waxaas ilaahay uu ku ilhaamiyo marna ka leexan maayo iyagu ku soconaya u fiirso oo kale quraanku uu sheegaa nabiyullaahi Muuse hooyadiis markii ay dhashay oo ay la walwashay oo meeligiisa ay weyday ayaa ilaahay qalbigeedu wuxuu ku riday horta inay nuujiso cunuga ka bacdina badda ay isaga rido ka bacdina wax tiraanya aysan muujin ka bacdina ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu soo celin doono oo rasuul uu ka mid dhigi doono intaas wuu ku ilhaamiyay ilaahay oo waxayna ilaa ummi Muusa an irtiihi wa talaleeyahay hooyadii Muuse waxa loo waxyooday waxa lagu ilhaamiyay waay inay wiilkeeda nuujiso saasa lagu ilhaamiyay kaas waxyigii rasuusha maahana ogow waxa kale jira waxyi ilhaama oo asagana waxa malaay aqalka oo kale xaqiisa ka iman kara shinnida oo kale sida isku daba joogto iyo sida ay guriyaha u raasanayso waa wax ilaahay ku ilhaamiyay ilaahay baana sheegay wa uha rabbuka ila an-nahli an ittakhadhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun waxa ilaahay wuxuu leeyahay rabbi nabi maxamed oo rabbiga wuxuu u waxyooday shinnidii wuxuu u waxyooday inay yeelato guriyo inay yeelato buuraha ka yeelato si ay ilmaheeda iyo malabkeeda meesha ugu samayso markaas iyadoo leen isku daba joogto aan kala leexanayn oo boqorkoodii daba joogta bay meesha saadaysa waa wax ilaahay ku ilhaamiyay marka waxyigaas waxa la yiraahdaa waxyi ilhaam waxa kale jira waxyi kale la yiraahdo waxyi ishaara la yiraahdo nabiyullaahi zakariya markii ilaahay uu u sheegay inuu wiilkii yaxya la yiraahdo uu siin doono buu ilaahay wuxuu weydiistay inuu calaamad uu ku garto marka wiilka la siinayo inuu calaamad siiyo ilaahay calaamadaas marka waxa la yiri waa 3 maalmood inaad hadlin qoomkii marka la joogay asaga oo wax u sheegi jiray oo uu maaragtay dacwada ku hayay inuu wax u sheego raba marka ishaaru marka wax uu sheegay فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وتلليه فأوحى أشار وإشارة إليهم أيجي أن سبحوا إني ماركت تكذان بكرة وعشيا قلب يسوع إني تكذان وحي قاسنا وحي ليرادا وحي الإشارة ليرادا وحي جرا وحي كلا ليرادا
وحي الوسوسة ووح شيطان اسكو وسواسيه شياطين الجن وحي اسكو وسواسيان وي القرآن كوا شيء أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض قاركود أوحيونها يزغر في القول قول أو ضربي أو مارك تبادل هو الاسكو دجي أو وسوسة أي مارك اسكو استعمالهم اسكو شيئا مركا وسوسة الشياطين وحي بالو شيئا ماركت كان أفراد وحوي وحي وحجرة وأمر أماركت أمر وكلا معنى هذا نقني مثال كيسم حاوي سورة زلزلة أفرس يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها maalinta qiyaame dhulka wuxuu ka waramaya waxyaalihii lagu sameeyay oo dhan buu ka waramaya tuhadithu akhbaaraha marka in dhulkii uu ka waramo wixii lagu sameeyay haddaad maalin ku boodbooday haddaad munkar ku samaysay haddaad balaayo ku samaysay markhaatiyaalka ka mid yahay markhaatiyaal badan baa imaanaya xibnahaagaa markhaati noqonaya rasuulkii ilaahay baa markhaati noqonaya dhulkii baa markhaati noqonaya markhaatiga dhulku markuu u yimaado waa lala yaabaya maaragtay see markhaatigan u yimid baa la leeyahay dhulkan see markaas la leeyahay anna rabbaka awxalaha amaraha rabbigeed baa amray inay maaragtay wixii korkeeda lagu sameeyay ay sheegto marka awxadaas macnaha amara way maaragtay tafaasiirta marka fiirso waa ku arkaysa marka waxyigu aan u jeednaa intaas oo dhan mahana waxa weeye midkii ilaahay xaqiis ka yimid oo rasuulkiisa loo soo waxyooday waxyigaas weeye waxyigaas saddex marxalo soo maray maaragtay mar loox maxfuud buu ahaa marna samaa dunya uu ahaa marna nabi maxamed baa lagu soo dejiyay bal huwa qur'aan majiid fi lawh mahfuud wa talaliya fi lawh mahfuud buu mar ahaa markaas laga soo dejiyay asagoo oo jumla amaaragta quraankii oo samaa dunya loo soo dejiyay شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واتلليه إنزال كاسي مركز اللوح المحفوظ وهي بالغ سودتي مركز كبعد أو سماء الدنيا لك يعني بحسب الحاجة يا مركز كبعد القرآن وسودجاي مركز توحي الله بعض آياته الله بعض أمر بالسودجاي مركز ساس سودجاي صدق يلا باتنصروا أي قرآنكم مروا الباب الله بهيها سودجاي نبي يقولون مركز أفرتن سنو جري إلى ماركتي صدق لبعض سنة مركي دقي سي لحدن يصدق سنة مركي وجاري ومركز مركا وقرآن كوحي يسوع جوسدي سورة دي وهري وقرآن كوحي يسوع دقي وحكم ذا هيد شن سورة ذات شن آية ذات وسورة العلق كجرة شن آية ذات اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شنتا آيات بقرآن كوسو هرمرتي دقيتانك مركا برنامج كذا سيد وسو دقي سيد النبي قال الله هذا يواجه أن قارنا هلا قارة مرك إن آيات سو دقتنا وحى قدام بيسي سورة البقرة سورة آيات كجرته وواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت آيات داس قدام بيسي القرآن سجال ما الموت بقرآن بالنبي قال الله عليه آيات داس مركي سو دقتي كبعد والله أفسد إلا النبي الدنيا ما تشوف إنه حالك تبع عليه ويشوف الدعوة إنه أفسده دعوة إنه واسوق قتي رجع كريب لها نواد ديار سمي بس إلهي هو أفسد ما يشاس كتير مركا وحيه صدق ناس أو مرحلة يصومر وحكلوا مركا أوجد بينا إن القرآن كان مركا لفسره هايو إن سيدا هذا ضدك وقفل بقدرنا إسكان فسرت الله ما أقبله قرآنك وحال روا قرآن اللي فسره مركي اللي واي سنة النبي اللي فسره مركز كبعد أقوال الصحابة الآن أساسا اللي جودها إن قرآنك وفسره ونستفسيليه تفسير أنتم معناه ده وحوي وحأركيسا نبي الله آدم يلا جوا الرماية وآدي لورد يرين هي مين ولا سوق جابين هي ماشى جابون مركا ماشى الدرب وفا سنة رسدي النبي الله آدم ماشى يكون درت عادسة نوح وحركة أيضا السوق جاي ملنا آد لورد يري ماشى درب عادسة هذا تفسير وبعنتاي وحكى له ترى القرآن كويس عدايا سجى عدينا هي مركاد مثالية السوق هذا توحى كم ذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحال يدي أولياء إلهي
وكو مركي قيامة الله تجو أن عبسنين وحي الدنيا وقصة تجينا أن تيرانيونين مركا أولياء قفل بوحي جعليه إنه أسوي أولياء إسكناضه وأنا الله شكتا قفل بوش شكتا مثل كاين كابو شجنايا عرفك واشجنايا كتاب قبله واشجنا فالي واشجنايا وياتك واشجنا قفل شجني لا معركه مركا شيء شداس الله قفل بوش شجنا هيو أولياء يتها إيمان كده موقت يتها أولياء قرانك وسيع دي وحلي الذين آمنوا وكانوا يتقون لابد المعمود بالله شيء وحوي أولياء وحلي ضدك إيمان كله إله الرمي تقون له لابد المعمود بالله شيء هدي أغفو كو أركتو إيمان يتقو أولياء أدو هو ديدين كلاحو حاجة كامل لكن لابد سداد كويدو عرك هدو بوبا هي أولياء نوها هو قرن شيطان دولها يوهي شمبروه هو الدولان محا أولياء يابس مقرن مركا أولياء نمدو حوي الذين آمنوا وكانوا يتقون آيات مركا ألا إن أولياء الله تفصيل كأوبانا آيات هذا السيعة سواء القرآن كالسيعة دي مالك لفيري والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق باليه إلهي يحير والسماء بان كل دارين هيا يو الطارق حدقي هبينك قورية هبينك قودة يوصعد هبان كل دارين هيا مخلوقات كسو الله كل دارتا أدين سلوه ما أقلا مركا الله السماء دي كل دارتا يحدقاس هبينك قورين هيا نبي محمد وحليل وما أدراك ما الطارق محاكو أغيسيي متك هبينك قورية هدي النبي محمد اللي يري محاكو ويسي أنا وحقيت شوقنا إن نوجين سو معدا إلهي بس سيعد وحير النجم الثاقب واحدة دلولين هي مقدقة افتين كيس كود دلولين هي مقدقة فك صورها هي وافتين كيس ماشى أو كسر بحي قفك حدقة هي ودريم كرا واحد مقدقة فك صور افتين كيس وكسر ده بحي مقدقة كاسب على هذا النجم الثاقب مركا النجم الثاقب محو عدي حدقي دارق أها أو أن المركي هو رجرني حدقي كاسا كوي عدي ماركت هذه كلمة مركي وحلا جربة حدقي أو مقدي كسر ده بحها هي إن أذو عرك أنت أديت هذا هذا جربة ماركت لكن هو الوعد هذا الكاس وهذا العدو مقوم مغا مالك لفيري الحمد لله رب العالمين مركي ليري وحال عالمين تم حيته عالمين تم مركي عدين باللوبة هي قرآنك أسجع السيعة دي وحليل فرعون بوحير قال فرعون وما رب العالمين بمسوي دي رب العالمين محوية قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بالين سماوات كأي أرض يوح أرحية رب جودوه يمارك ترى الله مركا السماوات والأرض وأنت أرحيسه ويمارك تي عالم خداد أنت عالم كاسب الإرادة marka quraanku wuu isfasiraa hadii marka quraankii aayad loo baahdo wax cadeeyo loo baahdo oo hadana quraankii aad ka weydo maxaa sameynaysaa ilaahay waa ku sheegay meesha aadilid ilaahay waa ku sheegay wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ilaahay wuxuu leeyahay wa anzalna ilayka dhikra وحان النبي محمد كوسو دجينا وحي بان كوسو دجينا لتبين للناس ددك انا اعديس ما نزل اليهم وحي لو سو دجي marka النبي محمد in waxyiga waxa loogu soo dejinay inuu dadka ugu cadeeyo wixii loo soo dejiyay soo aayad ku sheegay mayso waxa ku cad marka nabi maxamed inuu quraanka meeshii cadeyn u baahan inuu ku cadeynayo magarad marka macnuhu waxa weey ahadiista nabigu waxay cadeynaysaa sunnada nabigu waxay cadeynaysaa aayadkii ka iskaal gala aayado iskaal galay oo sunnadu ay cadeysay marka lagu tusaya si aan lagu qalqalin ilaa hadda waxa soo baxay dad badan oo sunnada diidana soo baxay ina marka fahamtaa la rabaa aayadahaas oo adigu dareento waxa ugu horeysa aayadaha oo tafsiilka aad ka helayso alladina aamanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية سودكتي آية معناه ذو حوي كو إلهي الرمية أو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان كوذنا أن كدهن ظلم أن كدهن أولئك لهم الأمن بيلين آمن هالشيء لين وهم مهتدون لوقت المعمود أو في عنبر الوسط
aakhire inay aamin yihiin oo dad aamin oo yihiin oo wax dhibaato isu soo gaarin hanuunsan yihiin loo sheegay markaas aayadda markay soo degtay saxaabadii cabsi weyn baa u timid ayagu quraanka yaqaaneen carabi ay ahaayeen ma ogtahay sida iyadoo kale maahan annaga in si waaweyn naloo tuso maahan waxay ka baqeen hadda weli nooma muuqato aayaddaas markay u soo degtay aayadda waxaa ka muuqda qofkii iimaan la yimaada oo dulmina sameeya aaminahaansho inuusan helayn hanuunna uusan helayn marka dulmiga ayaga waxay u daransanaayeen dembi bay u daransanaayeen markaasay nebiga u tageen waxay yidhaahdeen ayuna lam yadlim nafsahu rasuulka ilaahay waa kuma midka aan naftiisa dulmin qof kasta oo naga mid ah dulmu sameynaya macnaa qof kasta waa dambaabaya marka walwalku wuxuu naga hayaa iimaan waa haysanaa laakiin dembi baan la nimid marka aamin ahaanshihii iyo hanuun ma haysanaba cabsidaasaa ku timid nebigu marka macnuhu inay siday u fahmeen uusan ahayn buu u sheegay wuxuu yidhi innahu laysa alladii tacnuun kaad adinku malaynaysaan arrintu maahan warsaa u malaynaysaan arrintu maahan alam tasmacuu qowla alcabdi saalix ma waadan maqal addoonkii saalixa ahaa qowlkiisii oo luqmaan ahaa oo muxuu yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah wiilkaygiiu ilaahay haw shariig yeelin maxaa yeelay ina shirka la dulmun cadiimun shirkigu waa dulmi weyn maanta waxaa loo jeedaa shirkiga dulmiga loo jeedaa waa ashirku saxaabaduna hadda mushrikiin maysan ahayn waxay ka baqaan meesha ma yaalin dulmigaas ayagu waxay islahayn waa dambi laakiin dulmigaas waa shirkiye ma ahan sidaad u haysataan ma garad ishkaalkii marka wuu ka baxay cabsidii wuu ka baxday maxaa yeelay dulmigaasi inuu shirki yahay ayuu nebigu u tilmaamay haddaan nebi maxamed aayaddaas u tafsiilin yaa u tafsiilin lahaa maaragtay yaa u sheegi lahaa ma garad ayaguse maxay u dhihi waayeen dadka dhahaya axaadiisa looma baahna nebigu maaragtay aayad kale noo keen annagu warkaaga yeeli mayno maxay u dhihi waayeen haddii warkaasi warkooda uu jiro waa been warkaasi marka sunnadu nebigu waxay caddaynaysaa qur-aankay caddaynaysaa mana laga kaaftoomi karo sida noo imaan doonta garad nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi man nuuqisha alxisaaba cudiba qofkii xisaabta lagu fogeeyo oo qidmiir iyo naqiir la baarbaaro saas loo baarbaaro cudiba waa la cadaabaya haddii mar xisaabta lagugu dheereeyo oo wax kasto aad samayso lagugu dheereeyo arrintu waa adkaanaysa markaasaa caaisha waxay tidhi ilaahay ma uusan dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran soo ilaahay ma dhihin markaasaa nebigu wuxuu yidhi inamaa dalika alcardu kaas waa bandhig xisaaban yasiiran la xisaabaya lagu leeyahay addoonka xoogaa yar la xisaabaa waa addoon la leeyahay waryaa addoon maalin hebel saasaa yeeshay maalin hebel saasaa yeeshay maalin hebel saasaa yeeshay waa bandhig kabacdina waa la iska daynaya ma garad laakiin qofka la faguro oo wax alla wuxuu sameeyey la soo rogo qofkaas cadaab u socdaa meeshaas u socdaa marka fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran nebigu wuxuu ku fasiray inamaa dalika alcardu kaas waa bandhig buu yidhi waa la soo bandhigaya hebelow saasaas yeeshay haddii nebigu uusan saa u caddeeyeen aayaddaasi soo tafsiir uma baahateen nebigu inuu marka wax fasiri karo qur-aankuna wuu kuu sheegay aayaddaasna waa lagu fasiray aayado badan waxaa jira haddii aan wadno cabaar dhan aan dhammayn karin nebigu waxaa jirtay qur-aanka xaafiduu cala salawaati wasalaati alwustaa baa soo aroortay xifdiya salaadaha iyo salaat alwustaa xifdiya la yidhi markaasaa waxaa lihi salaat alwusdadu maxay tahay waa la garan waayo aayad qur-aan oo caddaysana meeshii ma isa imaanin nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagaa yidhi waa salaatu lcasri buu yidhi salaadda casarku waa salaad doqomadoo dhan kolba maaragtay intay meel kale kusii jeedaan ay ka tegaysaa marka salaada casarka xifdiyaa la yidhi gooni baa la isugu sheegay marka nebigu wuu caddeeyey mar kale qur-aanka waxaa la yidhi markii jihaadka loo diyaargaroobayo wa acidduu lahu ma stadactu war waxaad awoodaan diyaarsada oo min quwatin ah quwadii waa la fahmi waayo nebigu waa caddeeyey wuxuu alaa inama alquwatu arramyu awooddu waxaa weeye murqo waaweyn kaliya wax tari maayaane hub hala diyaarsado waaye markaad dagaal gelayso waa in hubkaagu diyaar kuu yahay laakiin haddaad iska aadda meeshii naftaada halaagto ma garan sunnadu marka waa taas waa caddaynaysaa waxaa kaloo intaas kaaga filan kitaab kasta oo xadiista ka mida waxaa arkaysaa kitaabu tafsiiraa ku jira bukhaariga arag muslimka fiiri abu daawuudka tirmidi kulle fiiri mid kastaba waxaa ku jira kitaabu tafsiir hadal oo imaamu shawkaani uu lahaayoo cajiiba ayaa jiray oo ahaa wuxuu yidhi
إن ثبوت حجية السنة سنة حجية سجنان تيدو سنة معناها هو النبي سنة ديسة سجنان تيدو يو استغلالها لك للنقشة بشرائع الأحكام أحكام إني جديسة إلا قولتها كلجة ضرورة دينية وضرورة لك مرمانة إن سنة أي حجتها سنة النبي إني حجتها كو إني إلا قول النقطة أيضو أحكام قوليه الجديسة أيضو وضرورة دينية بوليه لك مرمان دينية وين maxay adiga hadii hadda lagu yiraahdo hebel tag adiga waxa laga rabaa arigaas 40 ka ninku haystay zakadiisi in bixisa laga rabaa ka keen quraanka waliga hadda ka daboorto ma helisid laakiin sunnadu waa ku sheegaysaa maar in 40 ka ariga arika dhiibis ma la tirin karo maaragta salaada hal tukada markii la yiraahdo qofku haduu yiraahdo aniga sunnada xagga iska dhig laakiin quraanka kaliya ku tukanaya ma tuko karaba marka wuxuu leeyahay in thubuut hujiyati sunnada xujadeeda sugnaanteedu iyo istiqlaalaha la gooni noqoshadeeda bi sharaa'ic ahkaam ay gooni la tahay daruuratun diiniya waa daruuro diiniya waa wax laga marmaan oo diiniya wala yukhalifu fi dhalika arrinkaasna ma khilaafayo buu yiri illa man la hada lahu fi al-islam qof aan islaamka dheef ku lahayn maahane qof kale ma khilaafi karo haddii aad aragto qof sunnada diidaya wax islaamka dheef uu ku leeyahay qofkaas lama arko markii lagu yiraahdo sunnada dheef kuma la macnaheedu maxay tahay mataqana islaamka dheef kuma la markii lagu yiraahdo macnaheedu waa maxay waa qofkaasi wax diin uu haysto lama arko waay diin laawo waay halkaas iska maray quraanka uu sheegayaan waxba kama jiraan marka barnaamijkaas oo sunnadiidkaayna waa barnaamij gaalada wadato قالوا القرآن كيف يسكت ضيدي وحكسته يكون سمايا وسعون ويد وحي أسوي جستين سنة النبي إني ماركت مركا إن بدأ وحي يسكت ضيا أحاديث إني يكون صدر صدان من وقت هو إلا هدر أحاديث إني يكون دران وحجري نين وحجري أو أحاديث يسكت سمين جري مركا ما أنتي دم نمانكي وأحاديث مركو سنة كذا ورينا نمان بو مقعد شيء موضوع أخريها هبل نمانكي لفتو ذا مغلي إنه وحكوري نكاس وأنا هذا البيان وإسكابورتي نمانكي أنت يصور عنه إيمان وحي هذا وحن مقلنا بدن إن أحاديث ورينا سواء نجا ورينا سه هبل الله هاي بل هاي مركز وحير هذيك كلمة مقعس اللي هذابك أنت ما قاعد شرته هل كاس وقال لحد مركو قدس waxa marka ku muuqda qofku markuu rabo diinta inuu maaragtay lugoyo sameeyo asaga waa isku dayay laakiin asaga lugoaya ahadiista nabiga in badan dad baa wax dabcayna ku soo daraan oo socon weyday waa ku lugoyeen hadda dad baa waxay isla soo mutaxeen inay yiraahdeen buuga oo Bukhariga la yiraahdo wax jira ma haye Bukhari haduu soo jirin waa nabi maxamed hadalkiisu ma jiro haye nabi maxamed hadalkiisu haduu soo jirin xagee sii aadi marka oo nabi maxamed hadalkiisu quraanku si uu soconaya waa yahay marka barnaamijkaasi waa barnaamij oo waayahan dambe soo cusboonaaday ma ayaan dhow waxaan arkayay nin oo Suuriya oo Sheekh Curcur la yiraahdo iyo nin kale oo Adnan Ibrahim la yiraahdo Masriya labadoodii la isku keen marka Adnan Ibrahim ku wuxuu ahaa nin oo dadka diidan sunnada marna waa ogol yahay marna waa diidaya markaas waxa la weydiiyay wuxuu yiri Adnan Ibrahim waxaan ku weydiinayaa in salaada horta ma tukataa adiga waa tukadaa inta ragco aad tukato intay rukuucood leeyihiin quraanka ma iiga soo saari kartaa markuu intaas weydiiyo runta isaga aw telefoonku uu ku jiro uuna la hadla wuxuu yiri la taarab carar marka wax ku weydiiyo waxaan ku leeyahay cararin hadalka aan ku weydiinay iiga jawaab mar alla markuu weydiiyo runta check waa iska jaray telefoonkiiba marka qofkii aan xishoonin asoo hadda waa iska soo istaagaya wuxuu leeyahay quraanku ma jiro hadda soo ma taagna sidaas kale u soo istaagaya laakiin adiga waxa walwalo yuusu ku haynin diintan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asaga noo keenay isagii haddaan tuhunno suuragal maahan inay sii socoto maaragtay
marka sidaas ogow maaragta sunnada nebigu waa laga maarmaan axaadiistu waxay fasiraysaa qur'aanka wixii loo baahan yahay ayadaa fasiraysa sharaa'ic kale oo qur'aanka aan ku caddayna ayadaa keenaysa oo tilmaamaysa sida salaada loo tukado xajka oo kale haddaa fiiriso waqtigaan ugu yar maahane aayaadka xajka ku soo arooray waa yaryihiin acmaasha xajkuna inta aragta tiradooda waa yaabaysa qofkii tegay waad yaabaysa haddii la yidhaahdo ka soo saara qur-aanka ka keena maya meelayaan laakiin waa qajajac cidlaha oo maaragta aan macno lahayn marka waxaa ogaataa sunnada nebigu inay tahay lagama maarmaan weeye sidaas uu sheekhu u sheegayana qofkii khilaafa arrinkaas laa xadda lahu fi lislaami wax islaamka uu ku leeyahay dheef lama arko haddii marka xadiis noo caddeeya aan weyno qur-aankii tafsiirkiisa maxaa la samaynaya saxaabada nebiga ayaa loo noqonaya aqwaashoodii waxay iyagu ku fasireen ayaa la raacaya maxaa yeelay ayagu waxyaalo badan oo ummadda intii ka soo hartay aysan haysan ay iyagu haysteen maxaa ka mid a waxaas horta ayaga qur-aanka ku soo degaya ninkii qur-aanku ku soo degahayay oo nebiga la joogay soo kaagama aqoon badna aayaddii qarsoontay inuu asagu fasiro asagaa kaaga aqoon badan waxay kaloo ayagu lahaayeen oo gooni la ahaayeen aayad waliba meeshay ku soo degtay yaqaanin meel hebel aayaddaasa ku soo degtay buurta hebel beerta xid dhinaceeda annagoo maraynay ku soo degtay aayaddaas uu ku leeyahay kow wamataa nazalat waqtigay soo degtana wuu yaqaana وفي من نزل قفك كسو دكتنا ويقنا وحي كلو أيقول هاي قرآنكو بلسان عربي مبين بكسو دك أيقولوا عرب أو فصحاء أو لهجدوا أيسن لهم بأهاي أو عجامتوا أيسن لغدوا ذي لهم مركا أيقولوا وحي يقانين لغة فصيحة قرآنك مركي اللي بلسان عربي مبين بكسو دك هذا الكعربي جابوا مرة والبلس عنها أو مبين كه لكن مد كان لهجده ما كان وامده حوجا ميلها دتك تفاهم وسويستي إن بدنا فصحات تقال ما بيقانين له جذب ما بيقانين مقرد مركا إن وحي يقانين لقضاء وقرآن كوسو دقي وحي كلو لهاين فهم إلهي جوني وكوسي أيق مقرد فهمت جونية أو أيق إلهي سي بالحي مركا أيقو آيات دي مركز معناه عدام وإذا أقواش وذا القادنا هي أو لغة فسرية عبد الله بن مسعود هذا الكساء وحا كم ذهي والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني تناله المضايا لأتيته والذي لا إله غيره وحن كل أرنها يا الله أسجى ما هنا إله كالأوس جريم من كل أرنها يا ما نزلت آية في كتاب الله آية كتابك إلهي كمدي مسعود جنبي إلا وأنا أعلم فيما نزلت عدة كسر دكتان أجاهبي يا وأين نزلت ماشي كسر دكتين ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني هدان أجاه يقف إجا أجال بغن وتناله المطايا قاديدك أوجاره لا تيت ونتجله قف وأنا إجا أجال بغن وآيات إجا أقوم بغن هدان أجاه وأتجلها مركب وحي أهاين dad aad iyo aad maaragtay quraanka u yaqiinay waxay kala lahaayeen baa la yiri Ubay ibn Ka'ab wuxuu lahaa Madiina misama kameel kamid ayuu darsi ku lahaa oo quraanka dadkana ku bari jiray macnaana ku bari jiray Ibn Abbasna sidoo kale ninka la yiraahdo Abdullah ibn Mas'uudna Kuufa ayuu aslan darsi ku lahaa markaas ayaga laga faa'iideysanay sidaas looga faa'iideysanay ardadii ka reebtay marka waa ardada taabiciinta la yiraahdo ayagana hadda laga qaadanaya oo markii kuwaas la waayay tafsiirkooda kuwaas la aadaya ma garad aqwaalu taabiciin ayaa la aadaya markaas ka baad oo sida kamid tahay mujaahid oo kale mataqaana Hasan al-Basri oo kale ninka la Saciid ibn Musayyib oo kale waa farabadiin taabiciinta aad ka qaadanaysaa waxay yiraahdeen culimadu haday iswaafaqaan xujjatun caleena nugiin laakiin haday iskhilaafaan ayaguna xujjo isku maahan anagana xujjo nuguma aha saasay sheegan quraanki marka haddii qofku uu yiraahdo ana maskaxdayda isaga fasiranaya ka warrama ana iska fasiranaya quraanka sida nimanka aqlaaniyiinta la yiraahdo oo quraanka aayadaha qaar kood markay fasireen suuratul fiil markay fasilayeen waxay yiraahdeen tarmiihim bihijarati min sijil faj'alhum ka'asi ma'kul
abraha markii uu kacbada ku duulay oo uu rabay inuu maaragtay kacbada jajabiyo ayada dhan burburiyo ilaahay wuxuu u soo diray shimbiro dhagax sita markaas shimbir waliba waxay dhagax ku dhifanaysay ninka iyo faraskiisa ama maroodiga uu wato bay ku dhifanaysay meeshaas uu ku baqtinay marka ayaga way fasireen oo waxay yiraahdeen shimbir oo dhagax soo qaada oo ciidankaas burburin karta lama arkee waxa laga yaabaa inay jaraasiimta waxaas aayadii dhama tarmiihim bihijaaratin ti jaraasiim bay ku fasireen waa bacteria yiraahdo waxaas mandara marka fasirka noocaas oo kala oo fasirka aqlaaniyiinta la yiraahdo maya annaga hadda fasirka waagi hore waa quraanku minusna soo gaarin ma aqaanay fasirkiisa meel badan oo dadkii baadiyaha xirka markaa fiirisid ay quraanka ku bedelayeen baa jiray marka xooluhu ay ka dhumaan إذا جاء سورة اللي يراد سورة النصر بأخريان مركا أيقو إذا جاء بيرادين وحيرادين شيخو حوله يقدروا ما أفواجن يقاخر أفواج أنت مركا وحي أوهستان إن أفكار لقى حيرها يا ماركت أفواج إنه جماعة مركا عرفت ضدكي أو جماعة دينتي وسوق لها يا ماركت مركا لو حارك يسار شيخو ماركتي إلهي إنه يندسوا عما ياخر عما ذا سوحي مودين إن صابت إن تاعي إن صابت ما هن عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون والمحيس ويدينها يا وي عن أي شيء يتساءلون مركزي عما ذا وحي وقاتل إن الآن ماركت مركزي إلى شيخو عما ياخر مركا وحلقي يا إن تاعي إن عام النمو وقاسيس إلى هالكاس ماركت quraanka marka waxa la rabaa marka fasirayso dadka hore fasiray inaan raacdo oo adigu waxa doonto isaga fasirin waa kii Abu Bakar uu lahaa wuxuu yiri ayu ardin tuqilluni wa ayu samaa'in tudhilluni idha qultu fi kitabillahi ma la a'lam hadii aan iraahdo wuxuu yiri ayu ardin tuqilluni waa maxay ardada ihaynaysa wa ayu samaa'in tudhilluni dhulka maaragtay samada ay hareynaysan waa tuma hadii aan iraahdo kitaabkii waxa ilaahay waxaan ka ogeyn aan ka sheego oo dhulku inuu ila go'o cirkuna igu dumo dhagax la iga soo tuuro baan macnaha munaasib u noqon karaa way marka ruuxu waa inuu iska ilaaliyo haduu quraanka ilaahay waxaan sidii u fasirayo maskaxdiisa uu ka fasiro dhulku inuu la go'o cirkana dhagax looga soo daadiyo waxa ma jirto maxay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ka baqday in maaragtay maskaxdooda haday wax ku fasiraan dib halka uga yimaado marka insha Allah kariim caaw intaas ku joojin doona waxa kale oo noo balana wixii aan khaldo wala isaxi kara ma yihi maaragtay sheekhan laga daba hadli karin maahi waxa kale oo la rabaa qofkii 10 ka dhageysta inuu guriga geeyo oo guriga intii ka sii aqriyo maxaa yeelay meesha u jeedaano gaalada meesha ay marayso iyo islaamku meesha kala marayo u jeeda dadkii diinta u baahnaa maanta waa ag fadhina wali qofkii luqadda yaqaan aaday muhiim u tahay inuu 10kaas qof aan garanayn u sii faa'iideeyo oo dadkan la joogna diinta aan ku dhex fidano mas'uuliyad badan baa na saaran laakiin annaga laftigayagii baa waxa laga yaabaa inaan diintii wax badan ba laga hayn laakiin qofkii luqad kale yaqaan waxa laga rabaa wixii uu garanayo inuu sii gudbiyo oo qofku arko oo uu sheego taasa laga rabaa marka insha Allah kariim caaw halkaas aan ku hakinayaa